wasiirka gaadiidka iyo horumarinta wadooyinka Soomaaliland oo ay weheliyaan maareeye ku-xigeenka hay'adda wadooyinka iyo maamulka gobolka Togdheer ayaa kormeer ku tagay wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta wadooyinka ee gobolka kadib kulan albaabadu xidhnaayeen uu wasiirku la yeeshay mas'uuliyiinta wasaaradda ayaa waxa faahfaahin warbaahinta siiyay siduuha wasaaradda gaadiidka iyo barasaabka gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi barasaabka noo jeermaana inaan howlaha gaadiidka ee gobolka shuruucdooda iyo dhismahooda sharciyeed aanu ka wada jaan qaadno wixii ka dambeeya sida daraadeed waxaanu halka mar raba farxad noo ah in wasiirka wasaaradda gaadiidka aan howlahaas la qaadanay waan uga mahad celinaynaa ka wasaaradda maaliyadda ahaan waxaana farxad noo ah in uu wasiirku ka hadlay in kor loo qaado dakhliga gaadiidka ka soo xarooda taasoo aanu isla qaadanay inaanu si wada jir ah uga qayb qaadano qaabkii looga wada shaqayn lahaa kor qaadista dakhliga gaadiidka iyo xafiis aanu halkan ka furay oo cusub oo xafiiska gaadiidka qaabilsanaan doona halkan maanta waxaynu gula jooga safar shaqo wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta wadooyinka safarkaas oo daaran runtii dardargelinta howlaha wasaaradda gaadiidka hadday noqoto dhinaca sharciyada iyo dhugmatiska gaadiidka liisamada buugaagta kala wareejinada si kor loogu qaado dakhliga wasaaradda gaadiidka kaga aadan miisaaniyadda qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland dhankiisana wasiirka gaadiidka iyo horumarinta jidadka ayaa ka warbixiyay kormeerkooda wixii qarankan waajib kaga ahna waxay dawladdu jeceshahay inay wax ka qabato ay ka mid tahay horumarinta wadooyinka iyo haday noqon lahayd shuruucdoodaba iyo xagga nabadgelyadoodaba marka waxaan baaq u jeedinaynaa dhammaan gaadiidleyda iyo hantiilayaasha sektorkan transportku inay nala shaqeeyaan wixii annaga nooga baahan yihiin diyaar waxaan u leenahay inaanu la shaqeyno wixii iyaga ku waajibay qarankan waajib ugu yeeshanayna iyaguna ay ku dadaalaan sida iskaga soo bixin lahaayeen waxaan doonaynaa inaan xoojino waxa la yiraahdo unionska amba iskaashatooyinka gaadiidleyda oo nidaam wax wada qabsay yeeshaan sidoo kale waxa jira sektorkaasi aad buu in badan inooga yar dib dhacsanaa wadamo badan oo wax jira jaarina la oo u baahan inaynu u adeegno talafteeda oo ka shaqeynaa imika heshiis baa jiri doona Itoobiya Soomaaliland ay qayb ka noqdaan oo xagga gaadiidka quseeya wasiirka iyo waftidiisa ayaa booqday xarunta hay'adda wadooyinka ee gobolka Togdheer iyo madaarka diyaaradaha magaalada Burco oo sanadihii ugu dambeeyay xidhnaa oo wasiirku kulan uu la yeeshay guddiga dib u dhiska madaarka Burco aanay warbaahinta siinin wax faahfaahina dhanka kale waftiga ayaa booqatay dugsiga dhagoolayaasha magaalada Burco ee Cabdo Aayir maamulka dugsiga ayaa warbixin siiyay waftiga ardayda haddii ku qiyaastay 200 gaaraysa waxaanu leenahay 2 bas hal bas ayaa noo shaqeeya baskaas wuxuu naga fadhiyaa imka ku dhawaad 12 bilood buu fadhiyaa insha Allah biidnillaahi baari ka mas'uul gobol ahaan waxaan ballan qaadaynaa inaan si dhow ula soconno xaaladooda waxaan jecelahay halkan inaan kaga dhawaaqo bil kasta 500,000 oo kamid ah mushaharkeyga inaan iskuulka siin doono maareeye ku-xigeenka hay'adda wadooyinka Soomaaliland Mustafa Faarax Qalab iyo wasiirka gaadiidka iyo horumarinta wadooyinka Cabdullaahi Cismaan Abakar ayaa iyana hadallo kooban ka soo jeediyay halkaasi istaagaya in ilmaha dhagoolaha oo aan hayb lahayn in booliska lagu daro boolisku wax qaato CID-da wax qaato wasaaraduhu wax qaataan hay'adda wadooyinka wax qaadato wasaaradda waxbarashadu qaadato dabeetana waa minbar yare ay ina shaqo inaga helaan waa markay iskuulka ka baxaan imikana ilaa 20 arday baa noo joogo iskuulkan ka baxay nolol kale aan haynin hadiya jeer waa garan kartaa qofka dhagaa qaba waa la yasayaa inaanu dadka u hiilino oo aan wasaaradaha geenaano waxaan jecelahay anaga laftigeegu 2 arday oo kamid ah 2 arday dhagoolayaasha iskuulkan ka baxay inaanu shaqo gelin waxa kale oo aan ka jawaabay codsigiinii ahaa inay u gaari labaad leedin iibiyay oo u baahan shidaal bil kasta insha Allah waxaan idinku ballan qaadi doonaa inaanu dhisino intan meesha joogo 200 litro shidaal ah oo aad ku isticmaashaan gaariga insha Allah hadal kariyo waxaan rajeynayaa dadka ugu intelligence caalamka ama ugu maskaxda badan leh dadka dhagoolayaasha Mahad Ali Goodir Star TV Burco